waxaa dhow xilligii dagaal uu dhex mari lahaa Turkiga iyo Israa'iil muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa si weyn isu soo tarayay hadallada adag dhaliisha iyo cambaareynta iyo goodiska uu ku laran yahay ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Turkiga dhowr maalmood ka hor ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hadlayay kulan uu la qaatay ra'iisul wasaaraha waddanka Greega iyo madaxweynaha jasiiradda Khubrus waxa uu sheegay in ay dhamaatay waxa uu ku tilmaamay riyadii boqortooyinkii hore isagoo si gaar ah ula jeeday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo Israa'iiliintu ugu yeeraan nin doonaya inuu soo celiyo boqortooyada Cismaaniyiinta dhinaca kale madaxweyne Tayyip Erdogan ayaa isaguna maalinimadii Arbacada hadal uu ka jeediyay magaalada Ankara wuxuu si kulul u weeraray Israa'iil iyo damaceeda gobolka ay ku doonayso inay isku ballaariso wuxuuna ka digay qoriga dabka leh ee uu la wareegaya Netanyahu iyo in arrintaasi ay noqotaa mid laga hortago haddaba macluumaad amrahani ku aadan iyo warbixin uu qoray saxafi u dhashay waddankaasi Turkiga oo arrimahani uu kaga hadlayo ayaa barnaamijkan idinkugu soo gudbinaynaa soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaareynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxa kamid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shariicada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo kamid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa cadayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir WhatsApp-ka +252 633 145 maxamed maxamuud cadde ayaa soo akhriyay warbixintan oo qadka ku jira maxamed inoo bilow warbixinta iyadoo colaadda laga yaabo inay dhex marto Israa'iil iyo Turkiga ay dardar galayso ayaa saddex ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareeya ee Turkiga ayaa booqasho aanan hore loo arag ku tegay magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Suuriya arrintaana waxa ay muujinaysaa isbeddelka ku imaanaya qaab siyaasadeedka gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan iyo wasiirka difaaca Yasir Guler iyo madaxa ciidamada sirta Ibrahim Kalin ayaa booqasho ku tegay magaalada Dimashq booqashadana waxa ay diraysaa fariin cad oo aad u xoog badan booqashadan ayaa imaanaysa in ka yar 10 maalmood ka hor markii uu dhacay waqtigii kama dambaystaha ee loo qabtay xoogagga lagu magacaabo xoogagga dimuqraadiga ee Suuriya ama SDF la yiraahdo inay u hoggaansamaan in 10 maalmood gudahood heshiiskii bishii Maash la gaaray inay meel mariyaan saacadee wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in sababta ugu weyn ay u diideen in ay meel mariyaan SDF ballankii heshiiskii la galay ay tahay in ay iskaashi la leeyihiin Israa'iil waa gartay maxamed marka arrintaasi SDF hadaynu ku sii soconno ma la oran karaa hawlaha ay wadaan SDF ee ay kaga soo horjeedaan dawladda Ahmed al-Sharac Israa'iil ba arrintaasi ku lug leh qoraaga muxuu ka leeyahay arrinkaas qoraaga oo soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga ayaa waxa uu leeyahay xaqiiqadu waxa weeye qaar ka mid ah howlwadeennada jabhadda SDF la yiraahdo ayaa waxa ay iskaashi dhow la leedahay Israa'iil oo hadda caqabad weyn ku ah wada hadallada ka socda Dimashq waxaana muuqata in markii xoogagga Israa'iil ay qabsadeen deegaano ama tageen 30 kiiloomitir kaliya u jirta caasimadda Dimashq Fidan ayaa
markii ugu horreysay ninka ka hadla si cadna u sheega eedaynta la xiriirta Israa'iil in ay xadgudubkaas samaynayso. hore bayaano telefishinka laga sii daayey ayaa waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ku xiriiriyey dhibaatada SDF ay wado waddanka Suuriya ku wado in ay door ku leedahay xukuumadda Israa'iil. waxa ugu muhiimsan ee bayaanka soo baxay Dimashq ka soo baxay halka Fidan uu ku daray hadalkiisa in ay macno badan sameynayso weedha ah xasiloonida Syria macnaheedu waxa weeye xasiloonida waddanka Turkiga oo fariin dadban u diraysa Israa'iil. arrintaana waa mid muhiim noo ah buu yiri hadalkiisa ku soo gabagabeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga. waa gartay waa yahay dhinaca kale qoraagu wuxuu ka hadlayaa arrintan Israa'iil ay wado iyo isballaarinta ay ku doonayso inay isku ballaariso badda Mediterranean-ka iyo isbahaysiyada ay la samaysanayso Greega iyo Khubrus si la mid ah sida Turkiga uu hadda xoog u saarayo waddanka Suuriya. maxay arrintaasi ka dhigan tahay buu leeyahay qoraagu? wafdigan culus ee Turkiga ka socda diyaaradooda intaysan caga dhigan garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara ayaa Israa'iil waxa ay ku dhawaaqday tallaabo ka soo horjeeda dadaalka oo Turkiga wado. sawirro ayaa warbaahinta la soo geliyey ra'iisul wasaaraha Greega iyo madaxweynaha waddanka jamhuuriyadda Qobrus iyo kulan kula leh magaalada Tel Aviv ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ay ka wada hadlayaan in ay isku dubaritaan howlo ay kaga soo horjeedaan waddanka Turkiga. taasi macnaheedu waxa weeye in hadallada isxulufaysiga ee bariga badda Mediterranean-ka ay dhab ka tahay. Greega iyo Qobrusta Greega ayaa ka mid ah khatarta koowaad ee amni Turkiga xisaabaadkiisa ku soo biirtay. waxa ay yeesheen kulan gaar ah oo ay la yeesheen xukuumadda Israa'iil oo saddex geesooda oo la isaga kaashanayo waxa laga yeelayo badda Mediterranean-ka. waxayna diraysaa arrintaasi fariin siyaasadeed oo Turkiga looga gol leeyahay. shirka jaraa'id ay saddexda nin wada yeesheen ayaa Netanyahu waxa uu si cad oga hadlay Turkiga wuxuuna sheegay hadalkan waxaan u jeedinayaa buu yiri kuwa ay la tahay inay dib u dhisaan imbradooriyad dhulkeenana ku darsadaan. arrintaas ka halmaama ayuu yiri ma dhici doonto. iskaashigeena waxa uu dardar gelinayaa oo ka wada ragga barbaga taagan Greega iyo Khubrusta Greega inaan awood u leenahay inaan nafteena difaacno. waa gartay marka fariintan ma fariin Turkiga kaliya ku egbaa mise waa fariin xitaa ku socota wadamada Carabta iyo dunida Muslimka ee Israa'iil dariska la ah? bayaankan ma aha oo kaliya mid bartilmaameedkiisa uu yahay waddanka Turkiga waxa uu sidaa fariinka culus intaas oo dhanka dhaqanka iyo dhanka siyaasadda taabanaysa. waxaanaad moodaa in arrintani looga gol leeyahay in cabsi la abuuro ay qabaan xataa wadamada Carabta laftirkooda oo la yiraahdo arrintaasina waxaa horseed ka ah ilo reer galbeed ah oo leeyahay waxaa soo noqonaysa Cuthmaaniyiin cusub oo casri ah. waa sida hadalka loo dhigay. qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa waxa ay tilmaanayaan Greega inuu isku dayay inuu cabsi geliyo muwaadiniintiisa oo uu ka hadlo inay Turkigii soo noqonayaan. qaybahan bariga dhexana kulligood waxay raadinayaan inay dardar geliyaan aqliyadda ah in Turkigii uu la soo noqon doono xukuumaddii Cuthmaaniyiinta. waxaadna moodaa howlahaasi inay yihiin howlo kicina. isxulufaysigan uu Netanyahu la xulufaysanayo Greega iyo Qobrus ayaa Netanyahu waxa uu rabaa in uu kiciyo si ola kacana oo been abuurana cabsi uu abuuro sida hadalka loo dhigay. waa gartay in muddo ah waxaan ka hadlaynay isbahaysi ay sameynayaan wadamadan
Greega Khubrus iyo Israa'iil dhinaca kale maxaynu ka ognahay xaaladda Israa'iil iyo Turkiga xiriirkooda oo hadda aad moodo inuu gaaray meeshii ugu hooseysay iyo isbahayshada ay doonayaan inay sameeyaan Greega Khubrus ayaa muddo dheer siyaasad ahaan Turkiga ka soo horjeeday hase ahaatee xilligan waa ka duwan tahay iskaashiga Israa'iil la galeen ee ka dhanka Turkiga ayaana noqon doonin tallaabo haddeertaan shacabkooda ay ku wacyigelinayaan waxay noqonaysaa siyaasad goboleed aad iyo aad u culus labadan dal oo iskaashi la leh Israa'iil ayaa waxay isku dayayaan in ay soo yareeyaan saameynta ay xukuumadda Turkiga ku leedahay badda Mediterranean-ka xataa waxay ogolaanayaan Israa'iil militarigeeda in uu ku soo dhawaado jasiirada ku dhow xeebaha Turkiga tallaabadaasna Turkiga ma aha mid iska indhatiri karo sida hadalka loo dhigay Israa'iil ayaa sidoo kale rabta inay iskaashi la yeelato cid walba oo siyaasadda Turkiga ka soo horjeeda waxaa la sarbeebayaa halkaasi wadamo Carabeed oo waxaa jira Turkiga inay awoodiisa soo noqoto aan ogolayn waxaana la xoojinayaa sida waddanka Hindiya oo kale oo Turkiga ka caraysiisay Hindida ayaa Turkiga ka carootay markii uu si cad u taageeray waddanka Pakistan arrintaana waxay dadgelinaysaa in iskaashiga wadamo Carabeed qaarkood ay ka baqayaan Turkiga awoodiisa sii ballaaranaysa ee gobolka intaa waxaa dheer Israa'iil in ay waddanka Mareykanka ole ka wado gaar ahaan ururada diinta ee Israa'iil u janjeera in ay leedahay halool istaago mashaariicda Turkiga oo noocyo kala duwan ah waa gartay arrimaha Israa'iil ay ka hor imaanayso waxaa ka mid ah diyaaradaha F-35 Turkiga inaan laga iibin bacdama iyadoo ay doonayso inay noqoto cidda kaliya ee gobolka bariga dhexe ka haysata dhinacaas qoraagu muxuu ka sheegay tallaabooyinka uu Netanyahu ka shaqeynayo ama Israa'iil ka shaqeynayso ayaa ka mid ah in Turkiga laga hor istaago in laga gado diyaaradaha F-35 in sidoo kale laga hor istaago inuu ka qayb qaato ciidamada xasilinta ee nabad ilaalinta ciidamada xasilinta ee la geenayo Mareykanka Gaza waxaana moodaa in ay Israa'iil dhiirigelinayso in la yareysto in Turkiga uu door ku yeesho gargaarka bini'aadanimo ee Mareykanka Gaza iyo sidoo kale in laga hortago xiriirka uu leeyahay ururka Xamaas xubnaha ka tirsan Koongareeska gaar ahaan kuwa saameynta ay Israa'iil ku leedahay ayaana waxaad moodaa in aynan joojinaynin in ay soo saaraan bayaano laga soo horjeedo waddanka Turkiga Israa'iil ayaa sidoo kale wada inay bartilmaameed ka dhigato oo xagga warbaahinta inay ku qaado waddanka Turkiga oo amnigiisa iyo mashaariicda amniga oo laga goleeyahay in la xoojiyo deegaano argagixisada ka dhanka ah waddanka Suuriya gudihiisa in ay propaganda ku furayso halka Turkiga wasiirkiisa arrimaha dibadda uu dhowaan ka sheegay magaalada Tehran in Israa'iil gardaradeeda ay joojiso Turkiga wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa waxa uu ka dhaadhiciyay madaxweyne Trump in weerar cusub aanan lagu qaadin waddanka Iran sababtoo ah arrintaasi khatar weyn oo xagga amniga ayay keenaysaa waa gartay labada dhinac waa Turkiga iyo Israa'iil arrinka ugu weyn ee isku hayaan waxa la leeyahay waa Syria ma wax kala jira Syria ayaa hadda waxa ay xudun u tahay tartan xagga awoodda ah oo u dhaxeeya Turkiga iyo wadamada reer galbeedka iyo oo Israa'iil ay ku jirto sababtoo ah Turkiga ayaa waxa uu soo jeediyey aragti ah Syria oo midaysan hase ahaatee hal dowlad ah hal ciidan leh iyo hal dhul ah Israa'iil ayaa waxay ololeynaysaa in ay taageerto qorshe lagu kala qaybinayo waddanka Suuriya oo 3 aag laga dhigayo oo ay qaab military inay ku faragelisan isku dayeyso Israa'iil tilaabooyinkoodaas ayaa fogaaday baa leeyahay oo xataa waxay bartilmaameed ka dhigatay madaxweynaha cusub ee waddanka Turkiga ee waddanka Syria Ahmed al-Sharaa deegaankiisa magaalada Dimashq meel ku dhow inay duqeyso waxaana loo fahamsan yahay in ay tahay hanjabaad ay ku diideyso hanjabaad ay uga hortagayso diidmada uu diidayo siyaasadda Israa'iil ee ku wajahan waddankiisa waxaana muuqata in ay ku hanjabayso in ay saameyn guracan ka imaan karto arrintaasi Suuriya ayaa si waxgal ah u noqotay goob
ay ku dagaalamaan Turkiga iyo Israa'iil markay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga saameynta, halka Turkiga uu ka shaqeynayo in uu go'doomiyo ciidamadan SDF-ka loo yaqaano iyo gacan uu ku siiyo Suuriya ciidankeeda iyo kooxaha kala hubeysan gacan siiyo. Israa'iilna waxay isku dayeysaa inay dadaalkaasi waxba kama jiraan ka dhigto oo ay u adeegsato SDF aalad ay ayada leedahay, gaar ahaan Fahim Hussein kooxda la yiraahdo oo qaar ka mid ah Druuska iyo Nusaariga iyo Nusayriga kuwa la yiraahdo in ay galgal ku yeelato. Inkastoo arrintaani ayna qarsoodi ahayn, haddana waxa ay lug la leedahay baa leeyahay qaar ka tirsan dagaalyahanada ururka Daacish. Israa'iil marka arrintaasi carqaladeyn badan ayay ku wadaa mashruuca ama hawsha waddanka Turkiga. waa gartay maxamed, marka iska horimaadadan ka dhacay xarab dhex maray ciidamada SDF iyo ciidamada Axmed al-Sharaa, suurtagal ma ka dhigi kartaa Israa'iil inay sii ballaariso markaasi dhulka ay Syria hadda ka joogto ama ay faragelinteedaba sii ballaariso? waxaa ka go'an